salaame daawade kusoo dhow muuqaaladeen kaga heli jinnada diyooga soo islaamay muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa maxamed asad waxa uu dhashay 2 luulyo ama Julaay 1900 sidoo kale waxa uu dhintay 1929 bishii Febraayo 20-keedii waxa uu ahaa nin Yahuudi ah oo qaatay diinta Islaamka waxa uu shaqayn jiray qaab wariye ahaan sidoo kale wuxuu ahaa qoraa asad waxa uu ahaa mid ka mid ah muslimiinta Yurub ee ugu saameynta badan qarnigii 20aad quraanka kariimka ayaa uu u turjumay luqadda Ingiriiska kaasi oo uu ku qoray The Message of the Quran ama fariinta Quraanka waa buug ka mid ah buugaagta ugu caansan ee uu sameeyay asad maxamed kadib markii uu safray carabta isagoo wariye waxa uu qaatay islaamka 1926 waxaana uu magaciisu bedelay maxamed asad intii uu ku sugnaa Sacuudi Carabiya waxa uu waqti la qaatay aasaasii Sacuudiga ibn Sacuud intii uu ku sugnaa Sacuudi Carabiya waxa uu boqorka Sacuudiga ama aasaasada Sacuudiga ibn Mas'uud kala qayb qaatay howlgal qarsoodi ah oo ku raadinaya ilaaha dhaqaalaha kacdoonka ikhwaanka maxamed asad waxa sidoo kale uu booqday Hindiya asad waxa uu saaxiib la noqday gabayaaga filosofka muslimka ah Maxamed Iqbaal kaasi oo ku qanciyay inuu ka tago socdaalkiisa isla markaana uu ka caawiyo dhismaha garaadka mustaqbalka muslimiinta Mr. Asad waxa uu 5 sano ku qaatay dawladda Ingiriiska inuu noqdo taliye 1947 asad waxa uu yahay dhalashada Pakistan kadibna waxa uu ka soo shaqeeyay xafiisyo badan iyo jawooyin diblomaasiyadeed ay ku jiraan agaasimaha waxa dawladda Islaamka ku xigeenka xogayaha bariga dhexe ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale ergeyga Pakistan ee qaramada midoobay shakhsiga labaad ee muuqaalkan ku soo qaadan doona wuxuu noqon doonaa Sheekh Xuseen waxa uu dhashay 1950 waa daaci Islaam ah ka soo jeeda Malaysia waxa uu ka dhashay qoys Buddhism ama haysta diinta Buddhismka Sheekh Xuseen waxa uu islaamay isagoo 18 jir ah waxa uu wax ka bartay caalimkii labaad Nasruddin al-Albani sheekhiye waa aasaasaha iyo madaxweynaha al-Khadaan waxa kale oo ahaan jiray 1980 la taliyaha ururka qaxootiga Islaamka ee Cambodia waxa kale oo uu la taliye ka soo noqday Beercam iyo aasaasaha dacwo xarunta Islaamiga ee Hong Kong oo haysna 1985 ilaa 1980 2015 waxa uu khudbad ka jeediyay shirweynaha nabadda Islaamka ee Australia kaasoo ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha diimaha Yuhuudda iyo Masiixiyiinta sheekhiye waxa uu sheegay argagixisadu inaanay muslimiinta ka turjumi karin aanay mas'uul ka ahayn wixii ka dhacay Sebtembar 11 2001 dalka Mareykanka kaasoo lagu burburiyay daarihii ganacsiga mataanaha sheekhu hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay Yuhuudda ay ka dambeysay burburinta daarihii mataanaha ee Mareykanka 2001 sidoo kale waxa uu kulamo la yeeshay sheekha caanka ee Hindiya ka soo jeeda Dr. Zakir Naik ayaa ay aad iskugu dhow yihiin oran jiray Maxamed